ciidda markii la qodo qaybta hoose qaybta sare way ka duwan tahay waa qaadi jira oo dhaqaaji jira uu ilaali jira gaari dameer iyo eriyanka ilaali jira inay macnaha waa taqana askar wax qofka dhintay inay ku buuqan oo dilaan ka ilaaliyay wax jirdil loo geysan waxa ay kamid ahaayeen beeraleydii lagu yaqiinay tacbasho iyo halgan nololeed nasiib darase waxaa loo haystaa labadan inay u leexdeen la shaqaynta qawaariijta iyo la macmiil eedeysanaha koowaad maxamuud cumar cismaan isaga iyo qawaariijta waxa ay iskala qabsadeen kala warqaadashadoodii ugu horeysana ay dhacday 2020 waliba tuulada Dacar degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose maadaama uu ahaana beeraley waxa kaliya la hubiyay khibradaha iyo ku shaqaynta qaabka loo tuuro bambada basaasnimada ama istidlaaca iyo diyaarinta ama qodista godad lagu aaso miinooyinka dhulka la geliyo sida soo boodo jalfiso ama miinataangi noocyada Soomaalida ay u taqaano isagoona markii dambe ku soo baxay xeel dheer aan reebin aqoonsi ah in jidku la falay sida beerta oo kale waxana uu amarada fulinta dhagaraha ka soo dheegan jiray horjooga geedo Cumar Yarow geelbeele oo geed fadhi u ahaa waa la helay raadad ahaa bixin xoga basaas oo Afgooye suuqeeda iyo ciidamada looga warbixiyay waxaana raad kala ahaa tuurista 3 bam iPhone ah mudana gudoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh eedeysanayaashaani waxay ka tirsan yihiin ururka argagixisada ee Al-Shabaab guud ahaan labadoodu ay ka tirsan yihiin sidaas darteed ayaan waxaan ugu soo eedaynay qodobka 6 faqradiisa 2 oo ah inay xubin ka yihiin urur argagixiso kaasoo xeerka la dagaalanka argagixisada oo reebayo ka mid naqashada urur argagixiso eedeysanaha koowaad wuxuu ka tirsan yahay markii Al-Shabaabnimo laga soo tago si guud magacaas laga soo tago qaybta qaraxyada qismul mutafajjiraad oo ka tirsan yahay wuxuuna geystay qaraxyo bambooyin fara badan qaarkoodna ilaahay dadku ka amaansaday in yarna ay dhibaato ka soo gaartay ummadda Soomaaliyeed qayb ka mid ah sidoo kale waxaan ku soo eedaynay qodobka 8aad wuxuuna adeegsaday qaraxyo suuqa Afgooye iyo meelo badan oo kamid ah ayuu dhowr jeer ku tuuray bambooyin sidoo kale eedeysanahaas waxaan ku eedaynay qodobka 25aad faqradiisa koowaad sababtoo ah waa la soo wici jiray jidka Afgooye ka baxa ilaa number 50 ayuu indhay jiray maadaama uu deegaanka degan yahay waxa la dhihi jiray miinaan rabnaa inaan jidka gelino miinaan ku soo dhiibaynaa meesha ku haboon gali markaasuu jidka tagi jiray meesha baabuurtu ay u badan tahay ayuu geli jiray waxa la yaab leh inuu qaadi jiray ciidda markii la qodo qaybta hoose qaybta sare way ka duwan tahay waa qaadi jira oo dhaqaaji jira uu ilaali jiray gaari dameer iyo eriyanka ilaali jira uu leeyahay markay gawaarida ciidanka xoogga dalka timaado oo meesha uu isu madadaali jiray ma ii waxaas oo la tilmaamay aniga ma ii mana sameeyna aniga waxa degan Afgooye soonihiis tuulo Dacar meel la yiraahdo waxaas la tilmaamayo ma ii sheekh ananin oo waxa ahayd oo herbaadiya ah oo beeraley ah beertiisa oo laga soo qabtay marka uu qarax dhacay beerta laga soo qabtay beera joogin adinta laga soo qabto laga ana beerteeda laga soo qabtay ma gurma laga soo qabana inta ku taala beertaada beerteeda waxa ku taala bislow agtiis maxaa ka dhacay agiin meesha markii kiraani waxa ka dhacay qaraxa ka dhacay meesha agteeda ayuu ka dhacay qarax ma ku dhacay kadib maal wixii adiga qarax ma go dhacay xabada ala isku shubay ciidan aan nasoo weeraray ciidankii sideen ugu soo qabteen tan ugu daran haddana la isku haysto ayaa ah qodista godadka diyaarinta goobta ay ku haboon tahay in la geliyo miinada iyo gudbinta qasaraha ka dhashay qaraxyada miinooyinka ah 5 miino oo tan ugu dambeysay lagu soo qabtay ayaana dhacday 13kii bishii 10aad 2025 waxaana ka dhashay geerida 3 askari dhaawaca 3 kale oo halis ah iyo 5 dhaawacyo fudud gaareen waana markii uu hawada galay miinadana ay burburisay gaariga unugta xoogga dalka ay sarnaayeen wadana gudoomiye garsooraha maxkamadda sharafta leh halkaan maadaama eedeysanu waa khariif ama dhul yaqaan oo meesha ku dhashay
waa meeshii uu u dooray miinada oo uu geliyey goobtii waa taas gaarigii xoogga dalka cabdibilaha ahaa hadday miinadu qabsatay sidaasuu noqday waa gaarigii maxamed aadan askari naftiisa u hibeeyey inuu shacabka Soomaaliyeed ku difaaco ayuu wuxuu ka shaqeeyay eedaysanaha koowaad inuu dhinto askariga labaad waa Mustaf waa askariga saddexaad ee halkaas lagu waayay waa isla gaarigii qaraxii asagu oo ilaalinayay ciidda ka dhowraayay oo maxaan ku yiraahdaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo wadada u galiyay waa kaas intaas ka dhalatay eedeysanaha labaad Cumar Xasan Caalin gabi ahaanba waa iska fogeeyay ka tirsanaashiyaha qawaariijta doorka u qaabilsanaha ururinta lacaga baada uu jafadiisa u dooni jiray waxaana shaqadan ugu hoostagi jiray qabqableh Abuukar Xasan Muuse lacagtana ka xisaabin jiray si ay ugu dambeyn ugu dhacdo horjoogaha jufadiisa qawaariijta u gumeeyo ee Isaaq Qayliye eedeysanaha labaad wuxuu ahay maalgeliye waxa lagu tilmaamo infaaqa u aruuri jiray al-shabaab kaalinta wuxuu ugu jiri jiray xagga maaliyadda maalkuna almaal qiwaamul hayaat qofka hadii laga jaro maalka uu dhimana wuxuu qayb ka yahay nolosha al-shabaab ay ku nool yihiin iyo sii wadida ay sii wadaan gumaadka shacabka Soomaaliyeed ayuu tiir muhiim ah ka yahay mudana gudoomiye sababtoo amaal uu la garab taagan yahay infaaqan soo aruurno ku leeyahay infaaqana waxaan ku arki jirnay shariicada islaamka qof xuquuq ku leh wuxuu siiyaa infaaq leeyahay sida waalidka iyo zawjada waxa la siiyaa anagu infaaq u naqaana in kunna muslimiin ayagu waxay infaaq u yaqaaniin waxa ummadda lagu dhibo mudana gudoomiye garsoora maxkamadda sharafta leh eedeysanaha koowaad dhibaatadii uu geystay waxa meeshaas uga maqan dawladda Soomaaliyeed gaar ahaan ciidanka xoogga dalka waxa kaga maqan hanti iyo naftaasoo isugu jirta dhimasho iyo dhaawac oo maxkamadda hor keeni doono eedana ku xusan sargaal xigeenkii soo qabtay labada eedeysane ayaa isla soo hor istaagay maxkamadda isagoo ka warbixiyay qaabka loo qabtay iyo sababta keentay in la tuhmo nimankan anaga waajibadana la sii shaqo waa baxnay xamara ka baxnay waa sii soconay afgooy ka leexnay deegaanka cad oo dibir meel ku aadan oo laamiga jayga u leexdo meesha ilaahay isheeg sabiibi caawle marka marayno miina kacday miinada markay kacday baabuurta laga digay difaaca xiran cabaar kadib taliyaha ururka wuxuu amar baxshay baabuurta in la geero sikado hore loo baxo ilaa wax kasta ma kara buugta nimanka marka sabiib laami jayga ka leexdo ku siro ku yeelay ka ordeen ciidanka xabado ku riday waxaan ku yiri xabadaha ka joojiyo askar u dir wala soo qabto wala keenay intaas markay dhacday tali ururka wuxuu yiri nimanka maxabiista iyo baabuurkan jajabay oo qarxay iyo agabka oo askarta dhaawacantay waxooda qaad xamar u laabo waxa ku iimaanay baabuurka gadiidka oo wiishka ku iimaanay anoo meesha ku sugayo mas'uuliyad kala muujiyo inaan nimankan shacab lagu qaldamin inay kala baroobeen tali waxa sameeyay eeriyada laga soo qabtay ilaa dhulkaas oo dhan baaritaan ku sameeyay agabka beerayda lagu yaqaanay abuurka yaambada kawawaha beerta lagu kawaawayo eeriyada wax yaal ma laha intaasaan ka ogaa taliye waana soo qabtay si nabadgelyo u keenay ma weydiisay su'aasha waxa weydiiyay ninkii oo sirdoonka ciidanka gaarka haystay tali Cabdullaahi adi su'aal ma weydiin aniga waxaan ka badbaaday askarta inay macnaha waa taqana askar wax qof ka dhintay inay ku buuqaan oo dilaan ka ilaaliyay wax jirdil loo geysan meesha qaraxa ka dhacay meesha laga soo qabtaa marka sidii beeraley lagu yaqaano eeriyada laga soo qabtay wax agab beer ah ama yaambo ama masaar ama abuur ama ilaahay waa ku rooyahay kawaawi beerta lagu kawaynay kawaa taqana wax yaala ma laha macna shaqo ka socoto meesha wax shaqo ka socoto ma laha wax ma ku yaalan beerta wax ma ka baxay wax dhulka xataa waa qalna ana xataa waxa xilligii roobka soo dhow beeraha waa la jiilal duwaamuta ama nimanka jiilal dugu socdaan wax agab oo ku arkana ma laha wala iska dhiga iska fariis baaraka tirsan taliska sahanka iyo wardoonka xoogga dalka ayaa isna laga dhageystay natiijada baarista mudana gudoomiye waaxda baarista ayaa galbaariseed u furtay eedeysanaasha magacyadooda eedeysanaasha maanta maxkamadda taariikhdu markay ahayd 22 bishii 10aad 2025 waxaana ka soo xantiisa
eedeysanaha koowaad wuu qirsan yahay in uu al-shabaab uu yahay xubin ka tirsan al-shabaab kuna biiray 2020 mudane gadoomiye markaan gabagabada baarsiinaas eedeysanaha koowaad waxaan ku soo eedeynay qodobada kale ah qodobka 5aad faqradiisa koowaad iyo faqradiisa 2aad qodobka 6aad faqradiisa 2aad iyo faqradiisa 3aad qodobka 8aad iyo qodobka 25aad ee xeerka la dagaalanka argixisada sidoo kale eedeysanaha labaad waxaan ku soo eedeynay qodobka 21aad ee xeerka la dagaalanka argixisada al-shabaab wabillahi tawfiiq maxamed gudub سيد محكمة وش شيء تبوين بوتوري وإحنا عندنا محكمة نقوم باتري سو ساس ما مينو ينك أسوق قضاب وكأها قدك وعدك لا حرف الله أهيد ما سي حرف الله أها سيد الله بوها هذا سرا سيد قدك وقود جري رجع والله سو جري ماشي جري رجع سو قد قدستو لها بس قدك قدستو لها يعني دانت استلع وضد قوبت دقيقة قوب شو دقيقة سو ما هين سيد دقيقة كود ماشي دقيقة ناس الحان دعر قوب شو دقيقة ما وضع عادي عيدك دور ده كولد إنه قف شعب يهاي بيرلي يهاي وكوش يسوما شبابنا وش شغل كلاي إذا سنة لبعض بيوان كهذا بيرلي هو يهاي لكن الشباب كتير ما سنت محكمة ku-xigeenka xeeralyaha guud ee ciidamada qalabka sida dhamme Bashiir Cabdi Macallin ayaa maxkamadda ka codsaday in dil toogashaha ay ku xukunto eedeysanaha koowaad halka eedeysanaha labaadna ay ku qaado ciqaabta ku xusan warqadda eeda sidaas la mid ah mudane gudoomiye waxa ay eedeysanaha koowaad oo geystay ama qayb ka ahay fal dhacay 13 bishii 10aad 2025 falkaas oo naf iyo maal oo ku waayay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sidoo kale mudane gudoomiye garsoorayaal waxaan cadeynay in fal dhacay eedeysanaha koowaad iyo labaadna ay yihiin say doonaha u kala lahaadaan kuwii ka mas'uulka ahaa waxaan horkeenay qiraal maxkamadeed walow kadib ay mermeeriyeen laakiin su'aashu waxa waayay marka la yimaado xuquuqda aadanaha amba xuquuqda qofeed eedeysanuhu ma ka naqan karaa qiraalka uu sameeyey jawaabtu waa maya kama naqan karo waxaa laga naqan karaa xaqul aadami lagama laabo karo mudane gudoomiye garsoorayaal waxaan soo bandhignay baarihi kiiska oo faahfaahiyey sawiradii marxuumiinta iyo agabkii uu burburiyey dhammaan ayaa soo bandhignay haddaba iyadoo intaas laga duulayo waxaan maxkamadda ka codsanaynaa in eedeysanaha koowaad ay ku xukunto qodobka 5aad faqradiisa koowaad maadaama uu ka mid ahay fal argagaxiso oo khasaaraha naf iyo maal leh oo maxkamadda aan hor keenay ay ka dhalatay oo qayb ka ahay weliba qayb muhiim oo ka ahay dhul yaqaan oo ka ahay godqodo oo ka ahay wax kasto caawina oo ka geysan kara ama qof bini aadan oo geysto oo ka geystay waxaan maxkamadda ka codsanaynaa in lagu xukumo qodobka 5aad faqradiisa koowaad si uu u dhadhamiyo marxuumiinta xoogga dalka Soomaaliyeed ahaada wixii ay dhadhamiyeen sidaas la mid ah eedeysanaha labaad waxaan maxkamadda ka codsanaynaa maadaama uu maalgeliye ahay aan soo sheegno maalku inuu nafta taagnida nafta oo qayb ka yahay eedeysanahaas wuxuu qayb ka yahay nolosha al-shabaab ay nool yihiin al-shabaab ummadda Soomaaliyeed waxay go'aansatay in la go'doomiyo haweenka laga xiro maalka laga xiro meel kasto nolol ka timaad laga xiro eedeysanahan ayaa khilaafay wuxuu diyaar u ahay inuu infaaq soo aruuriyo tolkiisa $1 uga aruuriyo si uusan dib dambe $1 ugu aruurin si uusan dib dambe argagixisada u caawin si dadka lamida ay ugu waana qaataan isna waxaan maxkamadda ka codsanaynaa inay ciqaabta ugu adag ee qodobada aan ku soo eedeynay ku xusan ay maxkamaddu ku qaado maxkamaddu waa mahadsantahay qareennada ayaa dhankooda maxkamadda ka codsaday in xuriyadooda la siiyo muwakkiliintooda maadaama beeraley ay yihiin caddeynna aan lagu keenin magacaygu waa xuseen caarif sheekh cali abukaato ah maxamuud cumar cismaan iyo cumar xasan cali si waafaqsan 16 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed si waafaqsan 103 maxkamaddu waxay u akhrisay eedoodii labada eedeysane si waafaqsan 104 waxay ku jawaabeen jawaab ah dambigana lagu soo eedeeyay ma gelin haddii aan ku hormaro eedeysanaha koowaad anoo ka duulay qodobka 116 ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed faqradiisa labaad maadaama koowaad ay ka jawaabeen
mudane guddoomiye maxamuud cumar cismaan marka koowaad waa oday Soomaaliyeed oo reer baadiye ah beeraley ah muuqaalkiisana maxkamadda ay arkayso xafiiska xilaalintu eedda uu ku soo eedeeyey inuu fal argagaxyo geystay miino dhigay dad laayay miilooyin badan aasay intaasuu ku soo eedeeyey eeddaasna dembigaas ma gelin buu yidhi waxaad garanaysaa qiraalka maxkamadda horteeda laga akhriyey 5 miinaan wax ka dhigay cid wax kuma noqon waa la baxshay 3 bambaan la tuuray wax laguma noqon waxaad ka fahmi kartaa qiraalkaasi qiraal isku aadan inuusan ahayn jawaabtiisu waxay ahayd aniga shabaab ma ahi shuqul kuma leeyahay dambina ma gelin sanaha labaad markaan u gudbo jawaabtii waa asaguna bixiyey wuxuu ahayd dambi ma gelin qiraalka laga qorayna wuxuu sheegay waxba seelaanta ku eedeynayo lacag wuxuu aruuriyey infaaq ku sheegay oo hal $1 iyo lacag maxaan ku sheegay diya ah oo qof magtiis lagu bixinayay iyo buu ku eedeynay labadaas qodob buu ku eedeynay marka koobaad maadaama shabaab qiraalna uu soo ahayn reebaadiyana uu yahay qiraalkuna uu qodobka 150 oo ka hor imaanayo maadaama jalsada hadda la jooga uu qiraal u ka ahayn asagana halkaas aan u gudbay qodobka 16 waxaan u gudbay gabagabada mar haddii aan aysan jirinin markhaatiyaal caddayn ah oo eedda xafiiska ilaalinta uu ku eedeynay qodobka 5 faqradiisa koowaad markuu xafiisku adeegsanayo waxay ahayd inuu markhaatiyaal keeno qodobkaas waa qodob dil ah wax caddaynana maadaama aysan jirinin oo qarax meesha ka dhacay beeraley ahaayeen la soo qabtay qarax baa meesha ka dhacay heemiyi ah beeraley ahaayeen annagoo beerteeda ka waaweynayno isu tiidayno baa qarax u dhacay kadib waa gabanay yiraahdeen bal in la dhaaf kadib ciidanka markuu soo baxaan waa carray waa reebaadiye waa in carraraan waa qabataa marka waxaan maxkamadda sharafta leh ka codsanayaa maadaama beeraley yihiin cid dambi inay geliso ku cadaynaysana maxkamadda horteeda la keenin xog la soo bandhigay in shabaab xiriir la lahaayeen telefoonadooda waa la hayay shabaab lacag siiyeen lacag loo aruuriyey wax cadayma oo kale aysan jirinin hadday dib dhacdo ciidanku waa iska soo qabtaa wixii meesha ka dhadhow haddii qax dhaco waa la aruurinaya aruuriskaas bay ku jireen waxaan maxkamadda sharafta ka codsanayaa ayadoo qodobka 122 tixgelinaysa dambilaawayaal inay maxkamadda u aqoonsato labadooba xorriyadooda la siiyo waa odayaal beeraley ah xaaslayaal ah caruurta ka baasanta abaar ku jira ina fasax siiso gaashaanle sare xasan cali nuur shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaana ugu dambeyn fadhigan soo xiray cabdi fataax akhyaar warbaahinta qaranka muqdisho